ma la helaya oo ma la helay cid tawxiidka qaybiso saddex qaybood ka dhigtay moxamed ibnu cabdilwahaab ka hor tawxiidkoo la qaybiyo saddex loo qaybiyo se daliilkiisu muxuu yahay tafadal ya sheikhana bismi illah alxamdu lilah masaladaas waa masalo muhiim ah runtii aad in loo fahnana ay tahay buuq aad u badanna waa laga kiciyaa ilaa la gaarsiiyey dadka tawxiidka qaybiya waxay ummadda ugu yeelayaan tahliis ma taqaan waxay tahay saddex ilaahay dadka ugu yeerayaan sida kirishtaanka oo kale kirishtaanku waxay leeyihiin saddex ilaahay la caabudo waa allah nabiyullaahi ciise iyo nabiyullaahi ciise hooyadiis maryamo binti cimraan saddexdaas ugu yeerayaan waxay yidhahdeen culummada tawxiid qaybiday dariiqadoodu waa saddexdaasay dadka ugu yeerayaan bal hadalkaas inuu ku dhisan yahay cilmi iyo cadaalad u fiirsada waxa ay kirishtaanku qaybiyeen waa macbuudka saddex macbuudoo la caabudayay keeneen qof kasta oo muslim ah wuxuu leeyahay laba ka mida in la caabudaa waa xaaraan waana gaalnimo nabi ciise in la caabudaa waa xaaraan waana gaalnimo maryamo in la caabudaa hooyadiisana waa xaaraanoo waa gaalnimo allah in la caabudaana waa waajib waana xaq laakiin bal fiiriya shan arrimoodaan sheegayaa ha ka jawaabeen midda ugu horraysa culummadii muslimiinta oo qaybiyey intaan la gaarin taqsiimu tawxiid macnihiisaan sheegaya ee hal mid ha inkireen oo ha yidhahdeen midkaasaa baadila ilaa tahliidkii waa anaga sheegnay wax baadile waxaan leenahay waxa ay qaybiyaan ahlu sunnuhu ma ahan muwaxadka la kala yeelayo ee waxa ay qaybinayaan waa kayfiyatu tawxiid qaababka ilaahay loo kala yeelayo ama kala yeelidda waxay leeyihiin allah keligiisa rabbulcaalamiin macnaheedu waxay tahay keligiisa koonka abuuray asagana keligiis maamula ha nagu inkireen ha yidhahdaan waa baad tan labaad waxay tahay allah asmaada uu isku magacaabay iyo sifaadda uu isku sheegay ama rasuulkiisa muxameda sala allahu calayh wasalam uu ku tilmaamay ama ku magacaabay sida uu u laa'iq ah ayaa alla loogu sugaa ayadoon laga leexin macnaha ayadoon la tacdiilin ayadoon kayf la sheegin ayadoon ilaahay addoommada lagu shabahayn sida ugu laa'iqaha loogu sugaa sifaadda uu sheegtay asmaada uu sheegtay nabigu kuu sheegay sala allahu calay wasalam ha nagu khilaafan ha yidhahdeen baatil weeye mana loo sheegayo mana loo sugayo macnaha saddexaad oo ah uluuhiyada in ilaahay loo sugo cibaadada keligiisa lama laha wey ha nagu khilaafan ha yidhahdeen waa lala leeyahy saddexda mid ka mid ah nagu diideen ilaahay weyna koonka asagaa ka rabbiya keligiisaa maamula ha yidhahdeen waa lala maamula ilaahay asmaaday iyo sifaaddu isku sheegay sida asaga u laa'iqahan ugu sugaynaa ha yidhahdeen loogu sugi ma ilaahay cibaadada keligiisuu leeyahy ha yidhahdeen waa lala leeyahy annagu saddexdaasaan sugnay waa kow labo a'immadii muslimiinta moxamed cabdiwahaab ka horreeyey aa qaybiyey salaf iyo khalafba waa qaybiyeen laakiin laba imaam aan tusaale u soo qaadana labadaas imaam mid waa ibnu jariir adabari imaamu lmufasiriin saddexdooduu sheegaa alasmaa wasifaat rububiye uluuhiye uu sheegaa aayadda 210 suuratulbaqara markuu maraa hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin markuu maraa wuxuu yidhaahd ilaahay asmaadiisa sifaaddiisa lagulama soo bixi karo laguma sugo ilaa khabar xagga rabbi ka yimid ama xagga rasuulka maahan sala allahu calayh wasalam halkaasoo asmaa wa sifaat ku sugaa aayadda aala cimraan ugu horrayda ilaah wuxuu leeyahay yuu yidhaahdaa oo uu keligiis iska leeyahay alrububiya waaluluuhiya rabbinimada iyo ilaahnimada saddexdooduu sheegay sidoo kale alimaam moxamed ibnu xibbaan abu xaatim albusti oo dhintay 354 hijriyadu markay ahayd rawdatulcuqalaa muqadimada uu ku keenaa allah inuu iska leeyahay keligiis rububiyada iyo uluuhiyada hal imaam oo diiday ha sheegeen kuwa aan sheegayno ibnu jariirna 1100 sano ka horeeya ibnu xibbaanna 1000 sano waxaa ka dhiman waqtigu dhintay 12 sano hal imaam oo diiday ha keeneen ayadan midda saddexaad rabbi iyo ilaah luqada waa ku kala duwan yihiin dhammaan culummada muslimiintu ilaah markay fasirayaan ficaal bimacnaa mafcuul ay ku fasiraan oo waxay yidhahdaan waa ilaah macnaheedu waa macbuud ku la caabudo oo cibaado mudan
sida firaash mafruush kitaab maktuub libaas malbuus ism mafcuulay ka dhigaan rabbi markay fasirayaan oo ah rabbulcaalamiin rabbi markay fasirayaan qaar waxay yidhahdeen waa master macnuhu isim faacili qaarna waxay yidhahdeen waa sifa mushabbaha qaarna waxay yidhahdeen waa isim faacil oo rabbi bimacnaa rabbi ah sida barhun bimacnaa baarhun u yahay hal mid oo yidhi waa ism mafcuul ha keeneen bal waaba gaalnimo in la yidhaha allah rabbi looyi oo la yidhaha marbuub ayadoo rabbi la tilmaama ma bannaana labadan kelimo ilaah iyo rabbi ah midna isim mafcuula lagu fasiray midna isim faacila lagu fasiray xaggii macnahee waaxid ha keeneen a'imatu luqa'a oo isku mid ka dhigeen midda afraad allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahumaa facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya ilaahi weynaa subxaanaه wa tacaala wuxuu sheegay inuu yahay rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahumaa ciraryaalka iyo dhulalyaalka inta u dhaxayda khaaliqa abuuree maamula inuu yahay waa rububiya facbudhu cibaadadii amro waa uluuhiya hal taclamu lahu samiyan asmaadii sifaadiisi wey mid u eg ma ogta ilah wuxuu yidhi subxaanه qul acuudu birabbi الnaas meliki الnaas ilaahi الnaas qul acuudu birabbi الnaas rabu الnaas waa khaaliqu الnaas wa maaliku الnaas waa axadka makhluuqa abuuro dadka abuuray iskale dadka meliku naasna waa midka dadka maamula ilaahi naasna waa macbuudka xaqa aho dadku inay caabudaan xaq u leh hal imaam oo yidhi saddexda kelimo waa mutaraadifaa oo hal macnay tusayaan ha keeneen ugu dambayn ashaacira qaybidaye dadka qayliyaya ashaacirana u tarjami mayaan ahlu sunnana u tarjami mayaan waa dad cadaawad ka tarjamay yaa ashaacira kutubtooda dhan saddexay u qaybiyeen tawxiidka soo ma jeedid bal sunusiyada fiiriya sunusiyada marka uu ka hadlaayo waxaad fiiridaan baajuuri dabcada mustafa baabilxalabi oo balladheeraha basar lagu daabacay bogga 18 wuxuu leeyahay aqsaam alwaxdaaniya 3 hadda waa saddex ogow waxdaaniyatun fi الذات waxdaaniyatun fi الصفaat waxdaaniyatun fi الأfعaal daatada waa waaxid sifaadda waa waaxid afcaasha waa waaxid weliba midda ugu muhiimsanaydna waa ka tag fiiri oo cibaadada allah keligiisna kuma darin keligiis maan umulbaraahiinkoo sharax iyadana waa sidoo kale ugu taalla mid iyo laba ma ahan hal waaxid oo inkiray culummadii muslimiinta oo culummad muctabara ah bal ha raadiyeen taasna marar badanaan xoogaa iyadoo intaan ka faahfaahsan ka hadlay wallahu aclam usulu alaao kale sharxiisa maraa canjalka 6 waa xoogaa intaan ka faahfaahsana waqti hore uga sheeg wallahu aclam